waxay ii tahay sharaf inaan maxay ahayd idinkala soo qayb gala xafladiina quruxda badan ee aad ku qiimaha badan anoo kamid maxaa la dhahay kasoo qayb galayaasha xafladda waxaan awalan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ee suurta galiyay in ummadan maxay ahayd meel iskugu wada imaado si nabada ee xafladda ugu dhacdo si nabada sidoo kale inta waxaan u mahad celinayaa ururka umid oo maxay ahayd qiimo iyo sharaf iyo wanaag iyo naga mudan maxay ahayd amaan sidoo kale inta waxaan leeyahay waxaan u mahad celinayaa maama Naciima sidoo kale inta waxaan u mahad celinayaa Sheekh Abdul Hayy waxaan leeyahay ururkan waa mahadsantihiin waxaad qabateen shaqo wanaagsan waxaad qabateen shaqo loo baahnaa waxaad qabateen xilliga loo baahnaa waxaad ku qabateen maxaa la ummadda u baahneeda u qabateen waa idinku dhiirigelinaynaa xilli walba iyo xaalad walba waa idin garab taaganaa waxaan diyaar u nahay inaan idin la shaqeyno maadaama aan anagana kamidna dhalinyarta kaleenta ee ku nool magaalada Muqdisho horay u socdo dadaal wanaagsan aad qabateen hooyooyinka iyo ilmaha maxaa la dhahay masaakiinta ayagana wax loo qabtay waxaan leeyahay ururkan wuxuu idinku mudan yahay inaa u duceysaan inaa garab istaagtaan inaa la shaqeysaan inaa dhiirigelisaan mar raba inaan ku sii dheeraado waxaan leeyahay ururkan waa mahadsantihiin jazaakallahu khayr shaqo wanaagsan aad qabateen waan ku faraxsanahay shaqada qabateen mar walbana waa idin garab taaganahay